surprise cajiib aan idin hayaa maanta waxyaabaha ugu badan ee igu soo noqon jiray waxa kamid ah Cabdiraxmaanow bal waxaad noo sheegtaa road map aanu raacno qofka doonaya cyber security inuu barto qofka doonaya inuu AI iyo machine learning barto qofka doonaya inuu barto software engineering waxa dadka badankoodii weydiin jireen bal ii sheeg step by step halkee baan wax ka bilaabaa halkee baan wax ka bartaa maxaa layga baahan yahay inaan barto wixii oo dhan baa waxaan hadaba idinku soo koobay section aan u bixiyay road maps oo aad ka helayso website-ka aqoonify markaad gasho dusha sare ayaa waxa kaaga soo baxaya section amaba menu ay ku qoran tahay road mapka markaad ku dhufato aan idin tuso aqoonify markaad sidaa u soo gasho waxaad ka dooranaysaa dusha sare halka loo yaqaano road maps markaad ku dhufato marka waxa ku soo baxaya road maps ka hadda ku jira systemka marka mid kamid ah haddaad imka kale ku dhufato AI and machine learning oo halkan ah oo tidaado start journey wuxuu ku soo furayaa isagoo informationkiisa dhammaystiran marka uu ku sharaxaya waxaan oo dhan hadaad u baahan tahay inaad haysato oo aad meel ku save garaysato oo emailkaaga uu kugu jiro si aanad u iloobina email me baad odhanaysaa emailkaaga halkaa gelinaysaa then send road map baad odhanaysaa marka saasuu kugu dirayaa haddii kalena dee halkan aad kala socon kartaa boo radio aad eegaysaa waxyaabaha aad u baahan tahay oo dhan marka halkan ayuu kugu sheegayaa maxaa stepka ugu horeeya muxuu yahay imse step buu ka kooban yahay stepka ugu horeeya waxa weeyaan waa kan la yiraahdo Python for AI or ML and ML marka kanaad baranaysaa sidaad u baranaysaa halkan ku sharaxay ku leeyahay master Python programming with focus on AI ML libraries library isticmaalayso haddaad marka information dheeraad u sii baahan tahay amaba resources free halkan aad ku sii dhufanaysaa Python kiibu ku soo dhigayaa sidaad u baran karto iyo maaragtay isticmaalkiisa iyo waxyaabahaas road map ka labaad haddaad eegto mathematics for machine learning halkan waxa ku jira machine learning algorithms sidoo kale deep learning and neural networks halkan waxa ku jira computer vision halkan waxa ku jira natural language processing waa kuwan dhammaan marka waxa weeyaan waa sideedaas muxuu ahaayay step AI ethics and responsible AI waa kaasi marka waa AI and machine learning haddaad u baahan tahay qaar badan oo kalena ku jiraan oo maaragtay very important cyber security fundamentals dad imka kale ku dhufato isagana sida ay kadalik imsa step buu nagu yiri weeyaan waa 5 steps waqtiga ku dhameynaysa waa 3 bilood ilaa 6 bilood waana beginner weeyaan marka waa road map kaliya ta for now waxa meesha ku jira waa road map iyo resourceska free-ga articleska iyo bugaagta iyo videoyada iyo koorsada free-ga wixii macquul ah soo gelin karna baan soo gelinay so marka halka laga la socdo halaga faa'iideysto